laakiinse walaashay wax dhibaato ah ha u gaarsiinin. Boqorad Elsa waxa ay la hadlaysaa askarteeda waxaanay ku dhahaysaa, hadda kadib waxaa idin maamulo ninka la dhaho Hans, isaga waaye boqorka cusub. Hans waxa uu la hadlayaa askartii waxaana ku dhahayaa, hubka dhiga, soo aniga ma ihi boqorkiina. Marka koowaad kaxeeya Elsa oo waxaad geysiin jeelka. Gabadhan la dhahan Anna inta aad kaxaysiin ayaa waxaad ku soo xidhaysiin qolkeeda waadna ku soo qufilaysiin. Waqtigaasi meesha waxaa imaanayo wiil la dhaho Lucas. Wiilkani waxaa waaye wiilkii la soo badbaadiyay Anna walaashad Elsa. Wiilkan markasta waa uu imaan jiray boqortooyada waana la sii dayn jiray maadaama uu saaxiib la ahaa boqorad Elsa iyo boqorad Anna. Hadda laakiinse waa loo diiday waxaana loo sheegay in uu noqdo boqor Hans, uuna rabin Hans qof inuu soo galo boqortooyada. Waxa uu dareemayaa Lucas inay khatar ku jiraan Anna iyo gabadha la dhihi jiray Elsa. Waxaanu bilaabay in si dhuudhuumashaalow ah ugu tago qolka gabadhii Anna ahayd. Waxa uu ku dhahayaa, kaalay soo bax Anna, marka aan baxno ayaad ii sheekeynay, horta aan ka baxsano meeshan. Anna iyo Lucas waxa ay soo raacayaan gaadiidkii uu lahaa Lucas. Anna waxa ay wax walba u sheegaysaa Lucas. Lucas iyo Anna waxa ay imaanayaan meel dhagaxaan aad fara badan ay joogaan kuwaas oo hadli karaa. Dhagaxii ugu weynaa ayaa u sheegayo Lucas qaabkay kusoo badbaadin karaan Anna in ay tahay in ay aadaan buur aad u weyn taasoo gebigeedaba wada baraf ah. Buurtaas waxa ay kasoo helayaan diamond baraf ah kaas unbaa badbaadin karo boqorad Elsa. Anna iyo Lucas waa ay baxayaan waxaanay bilaabayaan safarka ay ku tagi lahaayeen buurtaas, laakiinse waxaa soo qabanayo boqor Hans iyo askartiisa. Hans waa uu xanaaqsanaa waxaan uu rabay mar labaad inuu la soo noqdo gabadhii Anna ahayd, laakiinse Lucas ma uusan rabin inuu arrinkaas dhaco. Boqorkii Hans waa uu daba eryanayay Anna iyo Lucas. Ugu dambeyn Anna iyo Lucas waxaa ka hor imaaday baraf aad u weyn kaas u samaysan qaabka bahalka. Waxaanu dhahayay, idinka halkan ma maraysiin. Barafkii waxa uu soo aaday dhankaas iyo gaadiidkii ay saarnaayeen Anna iyo Lucas. Xilligaas oo iyaga ay ka boodeen waana uu kala jebiyey. Hans waxa uu joojiyay askartiisii waxaanu dhahay, iyaga bahalkan ayaa dilayo, aniga ma jirto sabab aan u sii daba erido ayna celiya. Laakiinse gabadhii ahayd Anna waxay arkaysaaba diamondkii lagu dhahay waxaad ka soo helaysaa buurta qaybteeda sare. Marka ay diamondkaas soo qaadatana barafkii aad ku weynaa ayaa u soo jilba joogsanayo gabadhii ahayd Anna iyo wiilkii Lucas ahaa waa ay fahmi waayeen qaabkay u isticmaali lahaayeen diamondkani. Ugu dambeyn diamondkii quwadiisii waxa uu dhex galayaa gabadhii Anna ahayd. Anna iyo Lucas waxa ay imaanayaan boqortooyadii oo uu dhex fadhiyo Hans markuu arko Anna iyo Lucas waxa uu soo dirayaa askartiisa si ay u qabqabtaan Hans iyo Lucas, laakiinse gabadhii Anna ahayd ayaa isticmaalayso quwadeeda ilbiriqsina kuma qaadanayso sidii ay ku dili lahayd Hans askartiisa. Hans markuu arko arrinkaasi waa uu isdhiibayaa waana la xirayaa isagoo waxaa lagu xirayaa jeelka. Anna waxay u imaanaysaa walaasheed oo aad u daciif ah. Waxa ay ka saaraysaa Anna walaasheed katiinad u xirneyd ee ka dhameynaysay enerjiga. Anna waxa ay soo saaraysaa diamondkii ay wadatay iyo diamondkii kuleelka ahaa. Labadii diamond ayaa cirka intay aadaan hal mar wada qarsoomaya. Anna iyo Elsa mar labaad ayaa haddana wada midoobeen. Anna iyada quwadeeda waa ay ka takaysaa maadaama uu diamondkii barafka ahaa isqeeyay. Elsa markay ka soo baxdo jeelka waxay amraysaa dadka waaweyn ee ku nool magaalada in mar dambe uunan ka soo baxeen ninkan la dhaho Hans jeelka, uuna weligiis ku jirayo Hans jeelka. Wixii ka dambeeyay maalinkaas Anna iyo Elsa si farxad leh ay waxaa iskaga noolaayeen boqortooyada. Ugu dambeyn Anna iyo wiilkii Lucas waxay ogaanayaan inay jacayl isku qaadeen waana isguursanayaan. Elsana waa ay ku faraxsaneyd arrinkaasi. Boqortooyadii quruxda badneedna waxa ay noqonaysaa mar labaad mid nabad ah. Halkaas ayay maanta asxaabay ku dhammaatay sheekadeena. Inta sheekada xigtaan kasoo dhigayo waxaan idinkaga sii tegayaa barwaaqo iyo bashbash.